السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت حنوزين على حفلاتك ونحن سيما ترغب بما تكودي بشي أمين كود محرم كودي بشي كواد محرم بشي اللي حد لو كون لاتنيا ولا فرتزيد كوبين تضيتهم بشي اللي حد لو كون لاتنيا ترمي لهم حارس انت حنوزين على حفلاتك مرات غير الأنسي أمين رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين وردك دم سوكرا شيء بنرت نتنياهو بنجامين نتنياهو رئيس الوزراء إسرائيل شاكو بير قولها لبنسحن وقامنا يبعد تراسن warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay sharcigan in Netanyahu saxin baarlamaanka in dhibaato u geyn doonto mustaqbalka Israa'iil isagoo mustaqbalkiisa ka helin ogolaanshaha. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Midlaan axmed sheekh xanuunsiin caafi maraadka madaxweynaha siima taariikhda takuudi bishii koowaad muxaram kuna sheegtay tansiid ku beegan 12 bishii lixaad Netanyahu ballan qaaday bixiyay bilowgii midlaan xariis inta xanuunsiin caafi maraadka madaxweynaha tilmaamay in arrintaasi ay mustaqbalkooda wardegdeg soo garay sheegeen Donald Israa'iil Netanyahu Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaare Israa'iil laamaha sharciga ee ka digayaan farqiga u dhexeeya Donald Trump warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay sharcigan ka sameynaysa ansixin baarlamaanka in dhibaato u geyn doonto mustaqbalka Israa'iil waxay sidoo kale jeediyeen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. midlaan axmed inta xanuunsiin caafi madaxweynaha siima taariikhda takuudi bishii si rasmi ah muxaram kuna farqula 48 ku sidoo kale warbaahinta lixaad lagu kun laataniya in xaaladu murugaysan inta midlaan naxariista xanuunsiin caafimaad marad khayr ee ka dhalatay awoodda soo garay sheegeen ee saameynta ku yeelanaysa Netanyahu ka socda Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaare Israa'iil dhibaatooyinka nabad suurtagal ah ayaa Israa'iil warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay sharcigan si aan saxiix baarlamaanka in dhibaato loo geyn doonto mustaqbalka loo siiyo xuquuq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلا أحرز انت حنوسين عافية مراتب مدخل إلى سيما تاريخ بما تكودي بشي كود محرم كنا في الحلقة تنزديد كوبيغان ولتون كي بيش اللي حد لو يكون لاتني شرعيات لحظة انت المديرة من حارس انت حنوسين عافية مراتب مدخل إلى سيامين إن كوبيريستا وردك دك نسوق راي شيء نتنياهو بنجامين نتنياهو رئيس الوزراء إسرائيل يعقوب بيرت كلها النبض وقامنا يا دونالد ترامب warbaahinta Israa'iil ayaa sheegay in sharcigan in haddii ra'iisul wasaare ansixin baarlamaanka in dhibaato u geyn doonto mustaqbalka Israa'iil uu sii wado iyo mustaqbalkiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. midlaan axmed inta xanuunsiin caafimaad madaxweynaha khayr siima taariikhda bima takuudi bishii Janaayo muxaram kuna farqula 48 ku beegan 12 bishii lixaad lagu kun laataniya ka noqon doono golaha sare ee naxariista inta xanuunsiin caafimaad madaxweynaha khayr Trump hogaaminayo wardegdeg soo garay sheegeen Donald Netanyahu Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaare Israa'iil sida lagu sheegay golaha xafiiska Netanyahu ra'iisul wasaare warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in sharcigan Netanyahu aan ansixin baarlamaanka aqbalay in dhibaato u geyn doonto mustaqbalka Israa'iil iyo mustaqbalkiisa qaban doona. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. midlaan axmed inta xanuunsiin caafimaad madaxweynaha khayr siima taariikhda bima takuudi bishii كود محرم كنا في البلاد تنزيد كوبيغان شقيتون كي بيش اللي حد لو يكون لاتنيا كي جناي لو يكون لحله انت المديرة من حارس انت حانوس الله عافية وحمرات مرات غير الأنسي أمين وردك دك سوق راي شيء دونالد نتنياهو بنجامين نتنياهو رئيس الوزراء إسرائيل يقول بيرو كلها النبض وقامنا كلها فلين غزة واربعين إسرائيل يا شيء شرعيا غزة يسحن برلمان إن dhibaato u geyn doonto mustaqbalka Israa'iil ee golaha mustaqbalkiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. midlaan axmed inta xanuunsiin caafimaad madaxweynaha khayr siima taariikhda bima takuudi bishii February 2016 bishii lagu kun laataniya shir gudoomiye midlaan axmed inta xanuunsiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taladani waxay wardegdeg soo garay sheegeen wajiga labaad ee qorshaha Netanyahu Trump Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaare Israa'iil jaraya dagaalka Gaza golaha ka kooban hogaaminaya Donald Trump isla markaa Israa'iil ayaa sheegayso sharcigan qoraalka golaha ammaanka qaramada u geyn doonto midoobay tirsigiisu yahay laba mustaqbalkiisa 800. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. kaasoo laansiiyey 7 November 2000
2028 ku beegan marka waxaa warka bishii lixaad 2020 ciyaarahani way socdaan Argentina way guuleysteen naxariis imtixaanaad khayr goolkiisa uu dhaliyo Messi war degdeg soo gaaray ciyaar xasaasi aad u adag Benjamin Netanyahu ra'iisul Senegal ayaa ku biiray golaha nabad iyo Faransa hogaaminaya Donald Trump ku baysay 3 ciyaaraynta Israa'iil ayaa sheegtay in sharcigan uu ku soo korran waa soo wadaxin baarlamaanka insha Allah dhibaato u geyn salaamu calaykum mustaqbalka Israa'iil